waxa walaalkay walaal weeyaan maxay ilig baa soo baxay dadana iligii markii dambe sidoo uu barsana qalbo dhakhtarku xidhaamo waa ifashan ku dag waay markii dambe waxaan geynay dhakhtar dhiigaan ka qaadnay waanu baarnay iskaan baan saarnay waxay noo cadeeyeen ka saliyay waan cararay aad soo baangeey maalintii galinkii dambe aad soo baan qaaday dhakhtaradii laba dhakhtar baan maray labadii dhakhtar ba isku mid bay dheecaan bay ka qaadeen iskaan bay saareen si walba loo baaray waxay dhaadeen xanuunkaagu waa intaasun xanuunka jirka kale waa fiican yahay ma sha Allah laakiin inta iska gaar wuxuu u baahan yahay kaawadi rosaal loo mariyo annaga dhakhtarka weyn baa laga helaa dhakhtarka weyna ma heli kartid oo Itoobiyaanki uu ka batay xanuunkan uu ku badan yahay marka waxa sameeysaa asoobaha waxaad geysaa bay yiraahdeen wadanada kale geebay yiraahdeen lacag maan haynin waxa maan haynin waan soo cili walaalkay dadkii baan dhex maray dadkiina waxba ma haynin xanuunkii maalin kuma tarin uu sii kordhay de waa ka imka hadalkii baa xidhmay waa ka soo walaacday in dhagihii baa maxay aan wax fiican ka maqlaynin hadalkiina uu xidhmay alxamdulillah xal tiro koomu galay haddana alxamdulillah markii dambe ilaahay baa maxay uu ka yargoay xanuunkii oo waa ka madax xukuro haya madaxdayada hadii qofka dhibaato markay ku timaado hadii soo garab joogsan oo yimaadaan alxamdulillah waa madaxdayadii waa kuwan bacadka u taagan waa kuwan sugayno waa ku garabkayga taagan iyagana ilaahay ha barakeeyo maxay anagana ilaahay ha noo bariyo inuu ilaahay caafimaad inkaga noo siiyo oo maxay uu noo caafimaado ayaanu leenahay madaxda insha Allah ducada waa la inaga wada aqbalaya oo dad islaam baynu nahay aad u wanaagsan oo naxariis badan ilaahay noo caafiyo Mustafa hana loo duceeyo anagana ilaahay caafimaad ha siiyo Mustafa dhamaanteena ilaahay caafimaad ha siiyo caafimaadka ilaahay baa bixiya ilaahay baynu bariyaan inteena caafimaad qabtaana waa inay alxamdulillah ilaahno marka caafimaadka qayb aad wax yar weedabaad ayaa dareemaysaa qiimaha ilaahay iyo nimcada ilaahay siiyay wasaaradda macallimiinta iyada ka mas'uula inkastoo inuu taagteena ognahay laakiin haddana mas'uuliyadda macallimiinta waxay wasaaradda ay saaran tahay shaqaalaha weeye isagu shaqaalaha dawladda laakiin macallimiin oo dhan ama iskuul gaar ah ka dhiga ama shaqaalaha dawladda ha noqdee wixii waxbarasho ka shaqeeya mas'uuliyad gaar ah naga saaran kuwa shaqaalaha dawladda ahina way ka sii xaq jiraan marka Mustafa waanu u dadaalaynaa mar hore waanu u dadaalay oo adiga ogaa inaanu meel warqad u qornay hasa hatee imika halkii way soo dhaaftay waraaqaha la sugayay iduguna waxa sameeynaysan sidii aanu idin soo sheegnay باسبورك الصومالي لانو سمايا ميلها باسبورك الصومالي لوgu tago turkiga oo kale in meel badan baa lagu tagaa Itoobiya wadiga yiri waxaan lagu yiri muddo qaadanaysaa oo dhakhtarkooda mashquula marka meesha ugu horeysa waaxdii daryeelka iyo waaxdii shaqaaluhu wayna la joogaan intii shaqaalaha isma ka ahayd waxaan ku dadaalnaa inay maalmaha soo socda dinka horta aynu meel dhakhtar wax laga qaban karayo aynu hadii ilaahay la gaalo macallimiin badan oo xanuunsanaysa oo in badan qaarkood daayihiin baa maalin walba noo yimaada wixii halkan aanu ku maareyn karno oo ku maareynaa wixii kalena de meelo kale ayaanu la kaashanaa waanu dadaalaynaa ilaahay de waynu wada dadaalaynaa ilaahayna caafimaad ha siiyo Mustafa macallimiinta kale iyo dhammaanba ummadda reer Soomaaliya iyo ummadda muslimka walaalkeen Mustafa ka tirsan shaqaale weynaha wasaaradda waxbarashada sayniska de xanuunka iyo caafimaadka ilaahay baa haya ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu caafimaad degdeg ah siiyo maanta booqashada wasiirku inuu ugu hogaaminayo ugu nimi waxa weeyaan inaanu idinkana dareensiino inuu xanuunka hayaan oo aan la dareemino habeen kastana waxa lagu duceeyaa wasaaradda iyo shaqaalaha dhexdooda iyo ducadaasana insha Allah wuxuu tar doonta wixii kale taa kulaana wasaaraddu ka hagran mayso Mustafa adna dinaad ku samirtaa la doonayo waa xanuunku ilaahay wuxuu keenaa samirka leeyahay marka insha Allah waad bogsan doontaa adoo caafimaad qaba biidnilaahi inaad ku soo noqotaan rajayna wasaaradda shaqadii aad baan mahadsantiin caafimaadkaagu inuu suu yahay anigu caafimaadkii ugu ka soo hagaagsanaya si hore aad badan fiican ka soo reeriya maalinba alxamdulillah rabbil aalamiin madina ummad muslimina ilaahay caafimaad maadan oo dhan ilaahay caafimaad اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك اللهم اشف اللهم اشف اللهم اشف إلهي عافمادهم كاغا بنين معلمينتي واوينيد ee Soomaaliland baad ahayd de macallin ahaan baan ku soo booqanay wasaaradda warfaafinta intii aad joogtayna بريق دوّد وكورونا فيروس كان عهوش عن نلاقة بثيء وقرا عروت اللوجو باهين يي وحبرشة ما شاء الله قف سلا صوت تي فينا هوش يسي هاي معلنا هاو بنا نفهم بكريه مركا دو ساردي وحبرشتنا أبغى لو يكون هسا أشرنا إلهي وكاغو قرية